waxaan idinku yeedhnay in uu komishanka doorashooyinka qaranku uu ka bixiyay jawaab hadal maalin dhaweed ka soo yeedhay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya hadalkaas oo runtii aan ahayn mid Somaliland munaasib ku ah deelqaaf weyn ku ah oo ay kaga hadlaysay gabadhaas doorashooyinka Somaliland waxaanu leenahay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee hadlay horta waxaan u sheegnay Somaliland inay tahay dal madax bannaan oo leh guddi doorasho oo madax bannaan Somaliland doorashooyinkeedu waxa ay soo qabsoomayeen muddo haatan ay odhan karno waxa ay ku dhow yihiin 20 sanadood oo guddiga doorashooyinkuna muddada ay la soo jaan qaadayeen oo ay ahaayeen kuwa qabanaya markasta doorashooyinka Somaliland iyo diiwaan gelintaba waxa loo xil saaray guddi madax bannaan oo guddi heer qaran ah oo ay Somaliland leedahay marka waxa la horta tahay inaad ogaato ayaa ku habboonid gudoomiye Somaliland waxay leedahay xisbiyo qaran oo ay soo doorteen bulshadooda oo ku yimid doorasho dadweyne ay ku yimaadeen xisbiyada qaranka halka ay ka leedahay gabadhaas waxaanu ka qaban doonaa doorashooyinka Somaliland oo waxaanu geyn doonaa saraaduuq oo xisbiyo markaa iyada ay ku matalayso Soomaaliya inay leedahay ba ka hawlgeli doon waxaanu sheegay Somaliland inay leedahay xisbiyo qaran oo aanay u baahnayn dal kalena aan looga soo waaridi karin xisbiyo kale oo dal kale leeyahay taa horta ogaato waxa kale oo muhiim ah Somaliland waxay soo gashay 7 doorashooyinkaas marka ay isugu jira doorashada madaxtooyada doorashada dawladaha hoose doorashada wakiilada oo markasta u dhacayay sidii dastuurka Somaliland uu sheegay sidii ay sheegayeen xeerarka u yaala Somaliland ee doorashooyinku markasta ay u qabsoomayeen haddaba iyadoo mar walba Somaliland ay u leedahay khibrad qabasho doorasho iyo diiwaan gelin oo maanta aynu taaganahay Somaliland in ay isticmaasho qaab iyada u gaar ah oo ah ayriska qaabka loo yaqaan ama se in laga sawiro cod bixiyaasha buuda indhaha oo wali aanay ka dhicin in dal kale oo Afrika iska daaya caalamka kaleba kamid ah inay ku galaan Somaliland iyada oo kaliya ku guuleysatay habka cusub ee dadka looga sawirayo isha ee lagu galiyay diiwaan gelinta si hadhowta loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof waliba uu ugu helo kaarkiisii oo sax ah oo aanu qofna u qaadan karin kaar labaad taasi horta Somaliland ku guuleysatay waxa la gudoomiyaha halka ay ka leedahay Somaliland ma ka qabanayna Somaliland waxa uu wanaagsaneed oo iyadana uba sharaf ahaydba inay tiraahdo Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya waxaan geyn doonaa sanaaduuqdeeda oo doorashaan ka qaban doona taasay u wanaagsaneed inay tiraahdo way Somaliland waxay wala mid tahay dalalka kale sida iyadoo aanay doorashada uga qaban karin yaana shaqo ugu lahayn ayaan horta Somalilandna aanay shaqo ugu lahayn marka waxaan u sheegaynaa gabadha hadashay inaanay marnaba ku soo riyoonin doorashooyinka Somaliland iyo xisbiyadeedaba Somaliland sidii horeba isugu tashatay ayay ugu tashatay doorashooyinkeedana inay iyad qabsato halka Somaliland maanta ay ka gaadhay heer caalamka laga soo casuumay guddiga doorashooyinka qaranka oo wax laga weydiiyo khibradda ay u leeyihiin doorashooyinka iyo diiwaan gelinta casriga ah ay maanta galeen maanta tartan baa Somaliland lagu soo jiraa mar walba waxa la yiraahdaa khibradiina wax naga siiyaad ku qabateen maanta diiwaan gelintii ugu dambeysay ahayd taan sheegay dadka laga sawirayay isha buudooda waa khibrad caalamka oo dhan u baahan yahay marka waxa la yahay doorta Somaliland doorashadeedu maba aha heer idinku maanta aad haybsan kartaan waxaad ka hadlaysay maanta oo hadalkaaga ku jiray in wali ay qabiye idinka yihiin xeerarkii doorashooyinka iyo xeerarkii diiwaan gelinta halka Somaliland 12 sano ka hor ay sameysteen xeerarkooda doorashooyinka kuwa diiwaan gelinta habraacyada haday tahay kuwa xisbiyada qaranka lagu dhaqayo haday tahay kuwa saxaafada lagu dhaqayo hadii ay tahay kuwa khilaafaadka marka doorashooyinka la isku khilaafo lagu dhaqayo xeerarka iyo shuruucdaas oo dhan Somaliland mar hore ay diyaarsatay maanta oo 2019 aynu marayno ayaa waxaad ka dhawaajisay inay wali qabiye ka tahay oo ay qabiye ka yihiin xeerarkaas oo dhan marka horta waxaan ku leenahay bal adigu horta dib isugu noqo maxaa ka dhiman
adaa weli khibrad u baahan oo caalamkana uga baahan in la idin gargaarana aad u baahan tihiin Somalilandna ma aha maanta meesha aad ku soo tashan lahayd inaad tiraahdo sanaaduq yar baan geynayaa oo la cararayaa imika halkeed keenaysa haddaan ku noqdo hadalladii markaa ay xildhibaanada ku weydiinayeen xildhibaanadaadu waxay ka hadleen in gobolada ay ka soo jeedaan iyo degmooyinka ay ka soo jeedaan aanay doorasho kaba dhici karin oo iyaga laftooda aanay iska sharaxi karin oo cidiba aanay ka dooranaynin halkii aad iyaga jawaabaad ka siin lahayd aad ka qancin lahayd ayaa tiri Somaliland ba geenaya sanaaduqan doorasho ka qabanaya waa laba eray oo runtii aad u kala fog oo dadku ay oran karaan marka hadalkaaga la dhageysto waxa ku habooneed inaad xishooto oo qaranka dhalay Somaliland aad ka xishooto waayo waad ku gaftay qaranka Somaliland gaf weyn baad ku samaysay gafkaana inaad ka noqoto ayaan kugula talinaynaa guntiga gabagabadii waxaan u sheegayaa qaranka Somaliland inaanay doorashooyinkeeda cidina aanay ku soo faragelin karin xisbi kale oo meel kale laga soo waariday cid kale aanay keeni karin guddi doorasho oo guddi qaran ay leeyihiin oo mar walba isbedela oo mar kasta qabta doorasho cusub iyo diiwaan gelin cusub oo ay tahay in iyaguna kaga daydaan sidaas oo kale marka waxaan leeyahay waad gifteen oo hawlihiinii doorashada ee la idin igmaday ayaad ilaa iyo maanta samayn karin laadiin xeerarka aad ku geli lahaydeen doorashooyinkii diiwaan gelinta mana aha inaad soo haybsataan maanta Somaliland oo wadamadii kaleba weli ay iska weydiinayaan heerkan wanaagsan iyo casrigan maanta ay Somaliland gaadhay qaabka ay doorashooyinka ku qabsanayaan iska weydiinayaan inaad tiraahdo waxaan geynayaa sanaaduqdeeda Somaliland doorashooyinkeeda iyo diiwaan gelinteeda waxay gaarsiisay heer gobol iyo heer degmo iyo meel walba ilaa iyo geedaha hoosteeda ayaa laga codeeyaa la iskana diiwaan geliyaa marka waxaanu idinku ducaynaynaa inaad idinkuna gaadhaan heerka maanta ay Somaliland gaadhay ee ah si nabad ah oo xor iyo xalaal ah in ilaa iyo geedaha hoostooda looga codeeyo